بسم الله الرحمن الرحيم. عشر كيني ما انتو حنكو برنينا base of editing اما بلوغا kala shandhaynta videoha waa video editingka sida loo soo gunaanadi lahaa ama marka aad muusigii titlekii iyo wixii dhan aad samayso noise-kii aad ka saarto howlaha inta badan ama insert video insert audio markaad samaysto howshaada kugu dhamaato projectigaaga halkeebuu ku dhamaanaya isweydiintu waa taa marka waxaad ogaataa ilaa uu sidaa intuu u jarjaran yahay ama u gogo'an yahay weli ma bislaan dibadda uma bixi karo iminka adigunbaa daawan kara si uu dibadda ugu baxo waa inaad qaab uu dibadda u baxo u samaysaa waa inaad tirahdaa share iyaad wax la wadaagaysaa marka waa inaad isticmaashaa kelmadda halkaa noogu qoran oo ah share kama dambeyntii halka uu tegi lahaa shareki wuxuuna tusayaa intaasoo option wuxuu ku leeyahay ma computerka dhex dhigaysaa ma mobile iyo wixii lamid ah device-yada dhex dhigaysaa ma internet-yada u diraysaa sida YouTube Facebook iyo wixii lamid ah ma CD baad u diraysaa oo kaliya mise waa 3D baad ka dhigaysaa mise waxaad doonaysaa inaad hard disk-ga dhex dhigato su-aasha wataa marka la dhigayo iyo qaabka uu dhigayo waxaa la yidhahdaa rending means waxa way isku xiris haddaba qaabkee baad u doonaysaa waxay ku xirantahay TV-ga aad la shaqayso waxay ku xirantahay CD-ga cidaad u duubayso inay yihiin qolooyinka Mareykanka iyo isticmaalaya NTC inay yihiin qolooyinka kale Carabta iyo Afrika baalka isticmaalaya inay yihiin AV in lagu isticmaalayo oo resolution aad u adag oo culus inay MPEG tahay iyo intaasoo macluumaad oo dhan baa ku soo baxay hadda iyo inaad doonaysid kaliya inaad cod kaliya ka reebato marka iminka waxaan example-keena ugu soo horeey waxaan ka dhigaynaa inaan DVD ku duubi doono marka DVD markaad doonaysid inaad ku duubto qaybta MPEG oo inaad tagtaa kuwana DVD waa lagu duubi karaa laakiin inaga Soomaali ahaan badanka hardware-kooda ama qalabkan ku isticmaalna ma haysano MPEG tooji markaad toojiso MPEG nooca aad doonaysid waa inaad taqaanaa marka waa inaad formatkii cidda aad siinayso waa cid noocii ah ma baal bay isticmaalayaan ma NTC bay isticmaalayaan kana waa NTC ma doonino waxaan doonaynaa inaan iska bedelno markaan rabno inaan iska bedelnana waxaan leenahay edit general kitag intaa iska bedel waxaan ku bedeli karnaa waxaan ku bedelaynaa NTC halka ahayd halkan waxaan ka dhigaynaa PAL markaan PAL ka dhigno kadib halka u noqo wuxuu noqday 720 times 576 on si gaar ah iyadana u baran doono formatka noocaasa halkanna waa 4-3 ama 4/3 waxaan ka dhiganaynaa 16/9 waxaan leenahay okay halka maxay noo soo baxay marka shaxdan eeg MPEG file-ka ahaa waxaan doonaynaa 720 iyo 576 waa kuwa marka baal buu noo sheegay waa kan baalka annaga ka dhiganay systemka dhan nidaamkan bedelanay nidaamkaaga magac u bixi waxaan leenahay markaan magac u bixinayna bilowga editing halkaad dhiganayso waa meel tani waxay kuu tilmaamaysaa halkaad dhigan lahayd doono qaybtan iminka toos noo soo baxday waa 19 oo ah Coral Video Studio Professional desktopka inaad dhiganayso desktopka taabso haddii aad library-ga dhiganayso library-ga taabo mathalan waxaad ka soo qaadaa library-ga adoo dhiganaya marka library-gii markaan tagno waa inaan video editing-kii aan boos uga raadino qaybtan folder samayso new folderkaas maxaa kugu qornaan kara master double click leh below editing baa kuu qoran then waxaad tirahdaa save maxaa kuu saaray si ay waxaan isu raacaan waa inaad samaysaa aad tirahdaa star means wixii video ahaa wixii qoraalaha wixii cod ahaa aad maanta oo dhan ka soo shaqaynaysay ayuu hal file kaaga dhigayaa macnihiisa wasaas waxaa jira magacyo fara badan oo stuudiyaasha qaarkood ku arki doonto mega file mega video something like that make a rendering
waxyaabaha noocaas oo dhan ayaa soo bixi doona waa isku mid marka waxaan leenahay start markaad aragto calaamada buluuga means wuu isku xirmayaa wixii dhan hal file buu noqonayaa wala barnaamijkani iminka waa daawan karnaa cid kasta aad doonayso flash external hard diskaga dhigan kartaa DVD baad ku duubi kartaa cid alaala cidaad doontid ayaad la wadaagi kartaa ama share la oran kartaa aan daawano barnaamijkani bismillahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu kusoo dhawaada barnaamijkeeni horumarinta nafta okay ugu dambeyntaan geeno si waqti uusan naga lagumin shay qof kastaaba u baahan yahay marka ugu horeyn waxaad u baahan tahay si aad guul u gaadhid inaad ilaahay tala saarato saasuu barnaamijka ku dhan yahay intaana casharkeena maanta aan ku baranaynay sida rendinga loo sameeyo ama lisugu talo ama lisu raaciyo qaybihii kala daadsanaa intaa haynoo joogto